maayirka degmada Taleex Cabdiraxmaan Cismaan Awaadan iyo maayir ku-xigeenka iyo golihiisa deegaanka ayaa saaka safar u kulgalay xaaladda bulshada sida biyaha iyo caafimaadka iyo dhanka waxbarashada u kulgalay deegaanka Caroole iyagoo ay bulshada deegaanka ka wareystay baahiyaha asaasiga deegaanka jira. Haddaba maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo golaha deegaanka ayaa booqasho ku tagay cusbitaalka weyn ee degmada Caroole, dugsiga sare Riiga Caroole. Bulshada deegaanka Caroole ugu warbixiyay xaaladaha ka jira deegaanka Caroole. marka koowaad mahad Ilaahay baa leh. marka labaad reer Caroole waan u mahad celinayaa sida quruxda badan ee midnimada leh ee cusbitaalkan quruxda badan ee gobolada iyo degmooyinka kale ee wadanka qaarkood aan ku olay u dhisteen. halka waxay ka muuqataa roolkii ama doorkii dawladdu inuu maqan yahay kii shacabkuna uu dhameystirmay. fariintiinan waxaa ballaneen inaanu gaarsiino cidda naga sarreysa iyo cid walba aan isleenahay baahiyaha faraha badan ee dawadu ay ka mid tahay, gunaysiinta shaqaaluhu ay ka mid tahay, solar loo sameeyo cusbitaalka ay ka mid tahay, qalabayntu ay ka mid tahay. fariintiina waa gaarsiinanaa. midda kale adeer wuxuu yidhi waan in canaanana canaantiisa gaalcun baan u arkanaa. Soomaalidana waxay tiraa faraska jeedalka waxaa lagu dhuftaa dhaawacada ha badiyo. sababtu noo canaantay waxaan u fahmanaa inay tahay boodhka ay iska jafeen meesha ay hadda joogaan meel ka fiican shaqada ha sii gaarsiiyaan oo ha dardargeliyeen. adeer canaantaada waa qaadanay waana gar. waxaan rajaynaynaa Ilaahay baa wax walba awooda, baahiyuhuna waa fara badan yihiin, laakiin wax mas'uuliyadda ugu weyn ee saaran waxa weeye inaan fariintiina aan gaarsiino ciddii aan islahayn waxbay ka qabanaysaa. waana gaarsiin doonaa agaasimaha guud iyo wasaaradda caafimaadkaba. waxaan rajaynayaa sanadkiisa inaanu halkan iskugu nimaadno. waa salaamayaa waftiga uu hogaaminayo maayirka degmada Taleex iyo xubnaha kale la socday golaha deegaanka. anigoo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Taleex laga soo doorto khaasatan degmada Caroole. halkan aynu joognaa waa xaruntii caafimaadka ee degmada Caroole. waa xarunta weyn ee aad aragtaan ee quruxda badan dad deegaanka baa dhistay. xarumaha kale ee public sector-ka ee degmada ka dhisanna dadka deegaanka un baa dhisay ee dawladdu waxa weeye ma ay dhisin ama hay'ado ma dhisin, iyaga dhistay. xaruntani waxay u baahan tahay baahiyo badan bay qabtaa, ama solar ha ahaato, ama shaqaale ha ahaato oo la guneeyo, ama sablay joogto ah oo la siiyo ha ahaato. khayr Allah siiyo kula hadir wasaaradda caafimaadku reportkana waa gaaraa bilaha ee xarunta. reportka bilaha ee xaruntana waa gaaraa. dawadana way siisaa. shaqaalaha aad aragtaan baa habeen iyo maalin u shaqaynaya si mutadawacnimo ah oo naftood horeynimo ah bay ugu shaqeeyaan deegaankooda. waxaan codsanaynaa deegaankii mar haddii uu dhistay xaruntii oo ay ka mid tahay waajibaadkii dawladda saarnaa inay dadku ay helaan adeeg dhammaystiran. dadweynihii baa kala qayb qaatay xaruntan sidan u quruxda badan bay dhisteen oo la dhisay. dawladdii waxaan ka codsanaynaa inay wixii kale ee facility ay xaruntii u baahan tahay laga taakuleeyo. marka ugu horreysa waxaan soo dhaweynaynaa si mug iyo miisaan la u soo dhaweynaynaa wafdida ka socota dawladda Soomaaliland. waxaan joognaa degmada Caroole MCH-keedii dhakhtarkeedii baan joognaa. waa dhakhtar shaqeeya. hay'ad iyo dawladii toona nagama caawin. waxaa dhisay dad deegaanka ah oo hormood u tahay Ilaahay raalli ka noqday Canab Xaaji Xuseen Xaaji Jaamac. inta markaan ka gudbo agoon waxaa ilmada ka dhameeya nima waxa uu qabanayn madaxu salaxa aabi baan saaxiib ahayn. waa ku sharfi doona, waa ku hagaajin doona. annagu war baan la ka qaadaa, warkaana meel lama geeyo. inaan madaxda loo gudbin oo dawladda loo gudbin iyo in meel dhaxal la dhigo iyo inaan la ka qaadin ma kala garan weynaa. laakiin annagu waa hadalaa waa sheegnaa baahiyahayaga. waa dhakhtarka shaqeeya, waa lagu dhalaa, ka dhaawacan baa lagu daaweeyaa. cid naga caawisay ma jirto. haddeerna dawladda Soomaaliland ma la hadlaynaa. haddeer oo aanu joogno aanu nahay waxgaradkii odayaashii waxaanu la hadlaynaa dawladda Soomaaliland. waxaanu leenahay annaga waraysigii waa naga dhammaaday. idinkaa waxtarkii idinku haray wixii aad meesha kaga soo qaybgeli lahaydeen baan rabnaa inaad ay ka muuqato. dib sidaad aragtaanba ceelka Caroole odaygii hore ka hadlay baanu dul taaganahay. waxaan nahay maamulaha biyaha ee magaalada. waxaanu ka hadlaynaa baahida biyaha sidaad aragtaan odaygii horena idinku yiri ceelkaas wuu xun yahay, wuu naga xumaaday, qofka waanu kala baxnay.
waxaa naga xun matoorka wuu naga duqeeyey wuu kansay muddo badanna wuu shaqaynay sistamka soolarkuna wuu naga xun yahay bamkii baa naga gubtay saasuu isaguna la mid yahay sida aad aragtaanna waxaanu kaga cabnaa janareetarka yar ee booyaduhu ku dhaansadaan soolarkuna waa la mid waa iqriir yar oo 10 midh ah wuxuu u baahan yahay in la kordhiyo oo la awoodeeyo waxaa kaloo naga xun haanta keedka xooluhu ka cabaan waana la arki doonaa iyaduna waxaa weeye laguma dhigi karo biyaha oo waa dilaamaysaa korka ka qubasa tuubooyinka waa daxalaysan 6 sano ugu dambeysay bedel iyo shaqo laga qabto waa daxaloobeen waa cancel banoqday waa biyo qaraadh oo dhoodiya saas oo cancelmeen dararkii sidoo odayga hore idin sheegay dararkii magaalada soo galeen waxay u baahan yihiin hore looga qaado sida awgeed waxaan ka codsanaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wakaaladda biyaha Cali Mariixaan inay cabashada si degdeg wax nooga qabtaan dugsi hoose dhexe iyo dugsi sare labaduba waxay u baahan yihiin dayactir badan xagga dhismayaasha qalabka korontada kombiyuutarada labada iskuulba midna ma leh imtixaanka ama la sacaanood ama guriga ayaan u dirsanaa waxaan doonaynaa in laga caawiyo xagga qalabka kombiyuutarka iyo fotokobiga dhismayaasha dhammaan kaabayaasha waxbarashada oo dhan ee labada dugsiga sare ee dugsiga hoose dhexe ee degmada Carooley dawladda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda waxbarashada waxaan ku codsanaynaa in ay naga caawinto macallimiinta oo kale gunnadooda dugsiga hoose waxa ka shaqeeya 12 macallin 6 ayaa gunna ka hela wasaaradda ay siisaa secondary-ga hal macallin ayaa gunna ka hela dhammaantood iyo hal waardiye waxa weey 8 qof ayaa gunna hela inta kale waa bilaa gunno waxaan wasaaradda ka codsanaynaa in ay gunno macallimiinta u hesho waxaan joognaa riiga degmada Carooley waxaan hadda ku sugannahay halkan aad aragtaan waa saacadii solarku uu ku shaqaynayay dabku hadda wuxuu marayaa 2 voltage buu marayaa 2 voltage xilliga horena wuxuu ahaa marka uu caadiga ahaa 45 kV baa loogu talagalay laba marayaa marka sida daraadeed cilad baa jirta xagga solarka ah oo solarka qayb kamid ah ayaa guban marka sida laajigeed wuxuu u baahan yahay 45 xabo solar baa saaran 45ka inta badan way guban tahay waayo dabka laga garanayaa xilliga daruuri timaado ama maxaan dhahaayay qabowgu u yimaadana waa isbanadayaa ceelku ama bamku waa istiminayaa dab la'aan awgeed marka sida laajigeed ceelkuna wuxuu u baahan yahay in laga bedelo bamka iyo dhuumaha ku jira oo wuxuu qaadaa 17 dhuumood iyo bamka marka faahfaahino cilada ayaanu ka bixinaynaa xaaladda jirta waa inahaas haantan oo kale waxa ay leedahay dayactir ayay u baahan tahay Ahmed Waytiman Bulsha TV la saxno sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland